waxaan maanta joognaa gobolkii Togdheer gaar ahaan wasaaradda waxbarashada horumarinta waxbarashada iyo sayniska waxaan ku wareejineynaa ka hay'ad NADFOR ahaan ama hay'adda diyaargarowga afooyinkeedka raashinka qaranka anoo ka wakiila isduwaha gobolka Togdheer ee wasaaradda waxbarashada waxaan ku wareejin doonaa 197 qoys oo raashin ah oo ka kooban 7 item raashinkaas oo loogu talagalay macallimiinta bilaa mushaharka ah oo sidaad ka hore ula socotaanba ay soo qorshaysay wasaaradda waxbarashadu baan markaa maanta halkan ku wareejinaa waa 7 item ka kooban yahay 7 waxa kamid ah waa bariis waa daqiiq waa sonkor waa beans waa timir waa baasto 7 item ka kooban yahay markaa waxaan ku wareejinaynaa isduwaha waxaan rajaynaynaa inay wax badan macallimiinta tari doonto oo ognahay in macallimiintu ay inta ka badan tahay laakiin se waxaan rajaynaynaa inta iyo in ka badan ba waan ka warhayn doonaa wixii imika laga bilaabana maanta intaas markaa wasaaradda waxbarashada isduwaha ku wareejinaynaa ilaahay baa mahad iska leh subxaanahu wa tacaala ilaahay baynu mahad celinaynaa ina siiyey galadaha faraha badan ee aadka u qiimaha badan islaamnimadu ka mid tahay dowladnimadu ka mid tahay amnigu ka mid yahay waxaa kaloo aynu uga mahad celinaynaa aafooyinka ilaahay dunida yimi inuu inaga badbaadiyo ayaynu ka codsanaynaa intaa mahadnaqaa kadib runtii waxaa kaloo iyana aanu mahad celinaynaa ka gobol Togdheer waxbarasho ahaan anigoo ku hadlaya afkii waxbarashada gobolka Togdheer hay'adda NADFOR oo runtii ka mahad celinaynaa deeqdan raashinka ah ee ay ugu deeqday macallimiinta aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waxaan aad baa uga mahadsantihiin waa asiibteen macallimiinta bilaa mushaharka 197 qoys ama 197 macallin raashinkaas oo loogu talagalay marka hay'adda NADFOR aad iyo aad bay u mahadsan tahay waxaan kaloo uga mahad celinaynaa cid kasta oo deeqda gacan ka geysatay ama bixisay ama ku deeqday iyagana aad baan uga mahad celinaynaa